magaalada muqdisho waxaa galabta ka kacay dab xoogan oo dhaliyay khasaare maal waxaana goobta isla markiiba soo gaaray gaadiidka dabdamiska oo qayb lixaad leh ka qaatay inay xakameeyaan dabka. Gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gaadiidka cusub Cabdiqani Daahir Cumar oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay khasaaraha laga warhayo ee uu geystay dabkani. Waxa uuna sheegay in ay waqti dheer tahay ayna dib kala soo wadaagi doonaan warbaahinta khasaaraha saxda ah ee jira. raxiin magacaygu waa Cabdiqani Daahir Cumar gudoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda ganacsatada gaadiidka cusub. halkani aan joogno waa Xoosh Motors waa macdar lagu iibiyo baabuurta sida indhiin ay qabanayaan waxa ka kacay dabkaas waxa uu geystay khasaare aad iyo aad u fara badan sida aad aragtaan gaadiidka meeshaan dadweynaha soo gurmaday iyo gobolka Banaadir iyo shirkadda Hormuud oo dabdimiseeda imaadeen gurmad fara badan oo ahelnaa Ilaahay wuxuu noo saamaxay inaan baabuurteena la baxno. hadda halkan waxa idinkaga muuqdo waa meeshii isbaarbaartiyada tukaamadii ahay xafiisyadii qalabyadii meeshii ay yaaleen khasaaraha ugu badan dhinacaas uu naga soo gaaray. alxamdulillah hadda maqriba la sii gaarayaa awoodii dabkana waa sii yaraanaysaa. ilaahay baa ku maadsan. marka waxaa ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan inta meeshaan joogto uga mahad celinaynaa sida gurmadka degdega oo walaalnimada leh oo gacanta leh oo hagar la'aanta ee noo siiyeen. waxaan si gaar ah ugu sii mahad celinaynaa shirkadda Hormuud iyo gobolka Banaadir dabdamisyadooda sida degdega ay noo soo gaareen. welina hooli far kama qodno dabka waa uu sii socdaa halkaas ay howl maraysaa. khasaare aad iyo aad ayuu u fara badan yahay. dabka hadda idiin muuqdo waa xafiisyadii waa goobihii ganacsiga oo isbaarbaartiga. halkan waxaa ahayd meel baabuurta lagu iibiyo isbaarbaartiga lagu iibiyo waa Xoosh Motors meeshaan dhex taagantihiin waa meel hanti aad iyo aad u fara badan ee taalay. saacadda ana arkaysaana weli dabka lama dimin khasaarana waa uu sii socdaa. wixii oo khasaare guudana dib aan ka soo sheegaynaa diilayra gurmadkii loo baahnay dadweynaha ugu badnay waa helnay. maamulka gobolka Banaadir dabdamisyadooda ayagana iyo Hormuud waa helnay. alxamdulillah in ugu filan gurmadka hadda waa helnay. dad oo dhaawacyo waa ay jiraan weli khasaaraha si aad iyo aad looma sii tira koobin laakiin khasaaraha oo dhameystiran biidnillaahi tacaala dib ayaan ka soo sheegaynaa diilayra wax dhimasho ilaa hadda aan xaqiijinay oo kiisa ma ay jirto. dabka muxuu ku bilowday dabka siyaabaha uu ku bilowday hadba qolaba si ay sheegaysaa ayada ruuxeeda dib aan ka xaqiijinayna ayadoo tafatirina soo gudbinayna insha Allah.